gudoomiyaha hay-adda dhowrista iyo tayada Somaliland mudane Muuse Xasan Yuusuf oo weheliyo agaasimaha guud ee hay-addaasi mudane Xamse Suldaan Aadan iyo weliba xubno kale ayaa waxay xarunta hay-adda kulan kula qaateen ururka shirkadaha soo dejiya daawooyinka ee Diwa kaasi oo lagaga hadlayay u diyaargarowga shaybaadhka hubinta tayada daawooyinka iyo cuntada. daafurka munaasibadan ayaa waxaa hadalla ka jeediyey gudoomiyaha hay-adda dhowrista iyo tayada waxaana uu yidhi kulankan wuxuu daaran yahay diyaargarowgii hirgelinta shaybaadhka hubinta dawada iyo cuntada, shaybaadhka tayada ee dawada iyo cuntada ee qaranka, maadaama oo shaybaadhkaasi uu in badan soo socday. waxaa farxad weyn oo ilaahay aan ugu mahad celinaynaa shaybaadhkii in imaka uu ku jiro qaybtii ugu dambeysay oo aan rajaynayno bil gudaheed in shaybaadhkaasi lagu soo afjaro haddii ilaahay ka dhigo. waxaanu aad iyo aad ugu mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo run ahaantii hirgelinta shaybaadhkan iyo kor u qaadidda tayada iyo siyaasadaba nagu dhiirigeliyey. waxaanu anagu diyaar u nahay inaanu anagoo awoodda ama muhiimadda koobaad saarayna dawada iyo cuntada iyo shayga bini'aadamku uu cunayo inaanu si muxuu ahaa waafaqsan heerarka caalamiga ah inaanu u baadhno, u hubinno, kana gudano waajibaadkii nagaga gudboonaa sida xeerka iyagu dhigayo xeer number 68/2014. mar walba waxaanu jecelahay ganacsatada la shaqeeya hay'adda ee sida dhow ula shaqeeya oo aan aaminsanahay ganacsatada dawadu inay kow ka yihiin. waa run xantu waa badan tahay, ku tiri kuteen badan baa jira oo la leeyahay dawada dalka soo gasha tayo ma leh. laakiin mar haddaynu imaka shaybaadhkiina haysano waxaanu rajaynaynaa insha allah idinka laftigiinu inaad kala baxdaan oo aan laydi arag uun ganacsato dawo ka ganacsado oo dawada ay ka ganacsanayaanna aan tayadooda la hubin. intaasi kadibna waxaa hadalka qaatay xubno ka mid ah ururka shirkadaha soo dejiya daawooyinka ee Diwa. aad baan ugu faraxsanahay tiimkan tayada dhowrista dawada waana la shaqeynaynaa. waxaan rajaynaynaa kolley marka anagu as tiim dawo ka hadlayno inaan anagu xaggeega mas'uuliyadeedii gudanay. shacabkuna kolley waxay naga aaminsan yihiin inay wixii tuhun jiray dadkii in kala saarayay tayada iyo dadaalkaygii tacabkaygii insha Allah inay waafajin doonaan oo dadkii bulshadii sidan u shaqeynayo tayadan dawooyinka dalka keena ee tayada leen ku dadaalno inay nala arkaan oo nala dareemo aanay noqon dacaayad suuqa ku jirtay oo in badan lahaa dawooyinkooda ma fiicno inay insha Allah yaraan doonto oo wixii talo iyo tusaalaba aanu noqon doono kulli inaan dalalka inaga inala midka iyo inala simanba inaan dawooyinkeenu dawo standard ay yihiin ay nala aaminaan bulshadana ay ku qancaan dawooyinka dalka aanu keenno. sidii horeba anagu aanu xafiiska intii la aasaasay baa la shaqeynay baanu diyaar ugu nahay urur ahaan inaanu la shaqeyno oo aan hadii la bindikaleeyo aan wixii marba ay soo kordhiyaan horumar ah isku garab taagno. xubnaha iyaguna saasay diyaar u yihiin. waxaan doonaynaa anagu in badan baad dadku ay dawada xantaan iyo dadka dawada keena in xantu hadaan doonaynaa oo waxaan ula shaqeynaynaa shaybaadhka qaranka cidda ugu horeysa ee maaragtay la shaqeynaysa ee marsanaysa alaabtooda waa annaga haddii alla ka dhigo. agaasimaha guud ee hay-adda dhowrista iyo tayada Somaliland mudane Xamse Suldaan Aadan ayaa isaguna mas'uuliyiinta ururka Diwa uga mahadnaqay wada shaqeynta dhow ee ay la leeyihiin hay-adda. waxaan jecelahay inaan halkan uga mahadnaqno ururka Diwa sida fiican ee uu noola shaqeeyo. kulankani waxa ahaa kulan wada tashi oo aynu kaga tashanaynay laabka qaranka iyo qaabka aynu u macaamili doono. runtii waxaan rajaynayaa inuu ahaa kulan aynu aad iyo aad isu xog wareysanay, xogo badan oo muhiimana u wadaagnay. mar walbana ururka Diwa waanu sheegnaa meel kasta oo tagno inuu yahay ururka ugu weyn ee dawoolayda ah ee ka shaqeeya jamhuuriyadda Somaliland. waa Maxamed Andar iyo Bushaar Bashka, MMTV Hargeysa.